kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan YouTube-keena Himilada Nolosha. Maanta waxaan idin la wadaagi doonaa mowduuc aad u xiiso badan oo ku saabsan markasta in dhanka wanaagsan wax laga eego. Koobka aad gacantaada ku hayso ma qayb ka mid ah ayaa buuxda mise qayb ka mid ah ayaa maran? Sida aad uga jawaabto su'aashan ayaa muujinaysa tognaanta ama tabnaanta qaab fikirkaaga. Sidoo kale waxa ay muujinaysaa aragtida naftaada aad ka aaminsan tahay iyo inaad tahay qof dhanka wanaagsan wax ka eega ama dhanka xun. Fikirka togan macnihiisu ma aha inaad iska indhatirto xaaladaha nolosha ee waxyeelada iyo dhibaatada leh, balse waa inaad u waajahdo una xalliso hamiyir qab ah oo aan waxba yeelahayn caafimaadkaaga jidheed iyo maskaxeed labadaba. Taasina waxa ay ku siinaysaa waayo aragnimo iyo inaad noloshaada dhib kaste oo ku soo waajaha aad u babac dhigi karto kagana falcelin karto qaab togan, adiga oo mar walba filanaya in ay jirto rajo iyo yididiilo. Tusaale ahaan, haddii aad maanta xanuunsanayso ama ay xaalad caafimaad darro ku soo waajahdo, weligaa ha is odhan ka kici maysid ama waad dhiman ama xanuunka ayaa saameyn kugu reebi doona iyo wixii la mid ah. Dabcan waa hubaal oo cid waliba waa ay dhimanaysaa, balse badqabkaaga iyo caafimaadkaaga waxaa qayb ka qaadanaya rajadaada iyo inaad mar walba wanaag filato. Allana subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi, ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina. Haddii dhammaan fikradaha madaxaaga ku soo dhacaya ay yihiin kuwa taban, aragtidaada nolosha oo dhami waxa ay u badan tahay inay noqoto mid murugsan oo niyad jabsan. Dhammaan fursadahaaga noloshuna waxa ay noqonayaan kuwa soo koobma oo aan midho dhal ahayn. Taasina waxa ay ku horseedi kartaa hamigaaga iyo hiigsigaaga aad nolosha ka leedahay in ay xumaadaan ama ay tayo ahaan hooseeyaan xataa adiga oo dadaalaya. Sidaas si ka duwan, haddii fikradahaagu ay inta badan yihiin kuwo wanaagsan oo barwaaqo sooran ah, waxa aad u badan tahay in aad noqoto qof guulaysta oo wax walba dhanka wanaagsan ka eega. Taasina waxa ay kuu suurtagelinaysaa in aad ahaato qof xasiloon oo deegaanka ku hareeraysan iyo deegaanka gudaha ee ruuxdiisuba ay degan yihiin. Midna ogow, adduunka aynu ku noolahay ma jiro qof isaga oo si taban u fikraya meel sare gaadha. Qof degan ayaa si toolmoon u fikira gaarina kara natiijo midho dhal ah iyo yididiilo toolmoon. Cilmi baarayaal badan oo isku hawlay in ay ogaadaan natiijada ay leedahay in si togan loo fikiro waxay isku waafaqeen qodobadan soo socda. Waxaana kow ka ah yaraynta niyad jabka iyo qulubka qofka ku dhaca, oo adkaysiga cudurrada, badqabka caafimaadka maskaxda iyo jidhka labadaba, yaraynta inuu qofka ku dhaco cudurka kansarka, iyo yaraynta khatarta cudurrada ku dhaca wadnaha iyo xididada dhiigga. Daawade, haddii aad nala soo gaadhay dhammaadka barnaamijka, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Mar labaad waxaan ku xasuusinayaa YouTube-ka inaad subscribe garayso. Waxaana idinla wadaagayay oo mowduuca idiin soo gudbinaya anigoo ah Rashiid Khadar. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.